Soo dhawaada dhammaan ardayda doonaysa inay bartaan luqadda Ingiriiska. Cashirkan waa cashir walahadhal ah oo u dhaxeeya dhakhtar ama doctor iyo qof xanuunsan oo bukaan ah. Marka soo qaado qalin iyo buug, kadibna qor wax walba oo kugu cusub. Waxaan kuu rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidid. Good morning. Please have a seat. Subax wanaagsan. Fadlan fadhiiso. Good morning, Doctor. Thank you. Subax wanaagsan, Dhakhtar. Mahadsanid. What brought you here today? Maxaa ku keenay maanta halkan? What brought you here today? Maxaa ku keenay halkan maanta? I haven't been feeling well for the last 3 days. Si fiican ma dareemeynin saddexdii maalmood ee la soo dhaafay. I see. Can you tell me more about how you feel? Waan arkaa. Wax badan iga sheeg marka sidaad dareemaysa. I feel weak and have a bad headache. Waxaan dareemayaa daciifnimo. Madax xanuun daranna wuu i hayaa. Did you take any medicine before coming here? Ma qaadatay wax daawo ah ka hor intaadan imaanin halkan? No, I just took some painkillers, but they didn't help. Maya, kaliya daawo xanuun baabiyo ayaan qaatay. Balse waxba iima tarin. All right. Let's see what's going on. Waa hagaag. Aan aragno waxa jira. When did the headache start? Goormee madax xanuunku bilaamay? It started about 3 days ago, and it keeps getting worse. Wuxuu bilaamay qiyaastii 3 maalmood ka hor. Wuuna ka sii darayaa. Do you also have a fever or feel dizzy? Ma qabtaa qandho ama ma dareentaa wareer? Yes, sometimes I feel dizzy, and my body feels hot. Haa, mararka qaarkood waan wareeraa. Jirkana waxaan ka dareemaa kuleel. Have you lost your appetite? Cunto ma kaa go'day? Micnaha ma waysi hamiga ama rabitaanka inaad wax cunta? Appetite waxaaba rabitaanka cuntada ama hamiga aad u leedahay inaad cunto cunta. Macnaha jumlada ah. Have you lost your appetite? Have you lost your appetite? Micnaheedu waa ma iska waysi rabitaanka ah inaad wax cunto. Yes, I don't feel like eating anything. Haa, ma jecli inaan wax cuno. Do you have any pain in your stomach or chest? Ma ka dareemaysaa wax xanuun ah caloosha ama feeraha? My stomach feels a bit uncomfortable, but not too painful. Calooshu waxaan ka dareemayaa wax yar oo cajis ah, laakiin ma ahan mid aad u xanuun badan. That's not good. Do you feel any joint pain or muscle pain? Taasi ma fiicna. Ma dareemaysaa xanuunka lafaha ama murqaha? Yes, especially in my legs and back. Haa, gaar ahaan lugahayga iyo dhabarka. How about your sleep? Are you sleeping well? Sidee hurdadaadu tahay? Si fiican ma u seexataa? No, I can't sleep well at night. I keep waking up. Maya, si fiican ma u seexdo habeenkii. Marar badan ayaan toosaa. All right. I'll check your temperature and blood pressure. Waa hagaag. Heerkulkaada iyo cadaadiska dhiigga, blood pressure, ayaan hubinayaa. Okay, Doctor. Haye, Dhakhtar.
Your temperature is a bit high. Heerkulkaagu wuu sareeyaa xoogaha. Oh, so I have a fever? Oh, marka qandho ayaan qabaa miyaa? Yes, a mild fever. Your blood pressure is normal, but you look a bit weak. Haa, qandho yar. Cadaadiska dhiigaagu waa caadi, laakiin waxaad u muuqataa daciif. I haven't eaten much these days. Maalmahan si fiican waxba uma cunin. That might be one reason. Taasi waxay noqon kartaa sababta. Have you been drinking enough water? Ma cabbaysi biyo kugu filan? Not really. I just drink tea most of the time. Runtii maya. Inta badan shah ayaan cabbaa. Tea is fine, but you must also drink water to stay hydrated. Shaha wuu fiican yahay, laakiin waa in aad cabtaa biyo si jirkaada uu u noqdo mid qoyan. Okay, I will try. Haye, waan isku dayayaa. Do you have any allergies to medicine? Daawada xasaasiyad ama allergy ma kuu kicini? No, I don't think so. Maya, sidaas ma u malaynayo. Good. I'll give you some medicine for the fever and pain. Waa hagaag, waxaan ku siin doonaa daawo qandhada iyo xanuunka. Should I take them before or after meals? Ma waxaan cunaa cuntada ka hora mise kadib? After meals. And make sure you eat something light, like porridge or soup. Kadib markaad cunto. Hubi inaad cunto cunto fudfudud sida boorashka ama maraqa. All right, Doctor. Waa hagaag, dhakhtar. I'll also recommend you to rest and avoid too much screen. Waxaan kugula talinayaa inaad nasato oo aad iska ilaaliso isticmaalka badan ee shaashadaha. Okay. How many days should I take the medicine? Haye, imise maalmood ayaan daawada qaadanayaa? For 5 days. If you don't feel better, come back for a blood test. 5 maalmood. Haddii aad ku dareemi waysid fiicnaan, u soo laabo baaritaanka dhiiga. Inshallah, I will. Thank you, Doctor. Insha Allah, waan yeeri doonaa. Mahadsanid, dhakhtar. You're welcome. Take care and get well soon. Soo dhawow. Ka taxadir, waxaana kuu rajaynayaa soo kabasho degdeg ah.